waxaan aaminsanahay fikir ahaan xukuumaddeeduna ay ku shaqaysaa in doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dowladnimada iyo horumarkaba doorka ugu muhiimsan oo bulshada Soomaaliyeed ay soo aragtay 30 sano ugu dambeeyay waxaan aaminsanahay idinka la'aantiin inaan dalku soo gaareen meesha aan joogno waxaan aaminsanahay inaad dhibaatadii ugu badneed idinku aad dalka ka soo saarteen waxaan aaminsanahay culayska ugu badan inuu idinku dhacay waxaan aaminsanahay dulqaadka ugu badan inaad idinku bixisaan adduunyada waxay isticmaalaan dadkooda oo dhan dadkoodu waa rag iyo dumar dunida meel walba oo la joogana dumarku ugu yaraan 50% ay ka yihiin annagu haddii marka dhaqankeenna uu yahay inaan 50% oo rag ah aan isticmaalno 50% bulshada kale oo haweenahna aan meel iska dhigno ama xuquuqdooda aan u diidno su-aashu waxay tahay adduunyada sidee baan rabnaa inaan u tartanno waddanka nagu dhegan oo Kenya ah ama Rwanda ah ama kan Yurub ah ama Mareykan ah oo 100% shacabkiisoo dhan isticmaala iyo annagoo dunida 30 sano gadaal uga dhacnay oo haddana weli ku taagan dariiq ah 50% inaan isticmaalno dadkeenna oo ah awoodda ugu badan oo aan leenahay dal ahaan su-aasha ay rabo ragga Soomaaliyeed inay isweydiiyaan oo anigu horeeyo waxay tahay sidee baan horumar ku gaaray waxaan soo jeedinayaa marka in la ballaariyo dooda ah gabdhaha Soomaaliyeed haddii ay yihiin 50% in awoodda ay 50% ku leeyihiin in codkoodu uu yahay ugu yaraan 50% in meel walba oo looga arrinsanayo danta iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed xuquuqdooda dhabta ah la siiyo waxaa kaloo aaminsanahay qarnigan hadda lagu jiro adduunyada inay isbedeshay aqoonta rag iyo dumar loo sameeyay yahay waliba gabdhuhu waxay si fiican yihiin aqoonta marka la fiiriyo cilmi baarista ugu dambeysay oo la sameeyay waxaa kaloo aaminsanahay goob walba oo laga shaqeeyo in ay u wanaagsan tahay dhaqan ahaanta iyo asluubta iyo wax walba in xuquuqda bini'aadanka la daboolo oo qofka xaqiiqda lagu doono waxaan rabaa markaa in aad uga sii shaqaysaan abaabulkii aad wadeen weligii meel fiican aad joogtiin hadda waa soo bilowdeen baarlamaankaa ku jirtaan xukuumaddaa ku jirtaan baarlamaanada dowlad goboleedyada ku jirtaan xukuumadaha dowlad goboleedyada ku jirtaan codkiina waa la maqlaa waxaa runtii laydinku yaqaanaa marka idinka iyo ragga la isbarbar dhigo haweenka Soomaaliyeed waa dad adag oo dulqaad badan oo Soomaaliya dhibka ka soo saaray sidaas u malayn maayo in ragga Soomaaliyeed laga sheego magac ahaan idinkaa ka fiican ragga marka inaad sii dadaashiin u baahan waxaa kaloo laydinka rabaa ragganna waa wiilashiinni iyo kuwaad xaasasku ahaydeen iyo walaalihiin iyo cid walba wax walba marka guriga qoysku ka asaasmaa dowladnimadana qoyskay ka bilaabataa iyo carruurtay ka bilaabataa idinkaa la rabaa amniga inaad ka shaqaysaan idinkaa la rabaa inaad ciidanka dhiirigelisaan idinkaa xogta rasmiga og idinkaa la rabaa inaad xogta bixisaan idinkaa la rabaa waxa waddanka khaldan idinkaa u jeeda inaad sheegtaan haddii haweenka Soomaaliyeed iyaguna ay kala qaybsanaadaan sida raggu u kala qaybsan yihiin waxaa yaraanaya rajada dalku uu leeyahay maadaama marka tafaraaruqa ka dhex jira ragga Soomaaliyeed sidii burburka uu aad u badnaa idinkana lama rabo inaad siyaasaddii lagu soo daalay dariiqeeda aad martaan waxaan rajaynayaa marka idinku inaad isku duubnaataan isxajisataan dulqaadka aad muujiseen oo midnimo ay kusii salaysan tahay inaad isku daydaan dalka in la samata bixiyo runtii hadda waxaa muuqata rajo weyn rajada waxaa tusaale ka ah markaan koonfur galbeedna mid sida naloo soo dhaweeyey
waxaad tusaale ka ah wada shaqaynta madaxweynihiina iyo dowladda federaalku ay leedahay waxaa tusaale ka ah rabitaanka shacabka Soomaaliyeed soo ballaaranaya waxaa tusaale ka ah goboladiina shabeellada hoose oo ciidamadiina qalabka sida ay ka shaqaynayaan sida loo xoreyn lahaa meelo badanna la xoreeyay oo cadawga laga saaray waxaa tusaale ka ah shacabka reer Xudur sida ay isu abaabuleen oo iyagu amniga uga shaqeeyaan waxaa tusaale ka ah gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada oo baydhabo meel walba taagan oo ka shaqeeya dowladnimada waxaa tusaale ka ah idinka isu soo baxay oo u yimid wasiirka sida uga arrinsantaan mustaqbalkiina waana meel walba oo dalka ka mid ah oo aan tagno sidaasaa muuqata rajadaas muuqata marka waxaa la rabaa in laga dhabeeyo si looga dhabeeyana waxaan rabnaa haweenka Soomaaliyeed inay hormuud ka noqdaan waa idin mahad celinayaa kulligiin ilaahay idin barakeeyo wixii howl ah waxaan rajaynayaa inaad wasiiradda kala hadashaan wasiiradda iyo inaad si wanaagsan u wada shaqaysaan idinku haddii aadan wada shaqaynina ma siin kartaan adeegga gabdhaha halkan joogay u baahan yihiin waxaan idin leeyahay